السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله Soomaaliyeed ee qiimaha iyo qaayaha mudan meel walba dunida joogtaan waa idin salaamaya soo dhawaada channelka naga daawanaysaan waa Somali Voice TV kulanti wacan ayaa idin laahay maanta waxaan rabaa arrin bogaadin mudan inaan ka hadlo walaalkeen Baabajey ayaa wuxuu sameeyay arrin aad iyo aad u wanaagsan oo in lagu bogaadiyo oo lagu dhiirigeliyo ay mudan tahay Baabajey ayaa wuxuu sameeyay arrin wanaagsan taasoo ah in uu mooto u iibiyay walaalkeen Idris Itaabo macnaha kulli magac kale leeyahay laakiin aadaaska Itaabta yani arrinta ilaahay yaa wuxuu magac ka sameeyay Idris Itaabo maar uu ku magac dheer yahay ma sha Allah waa nin aad iyo aad funny u ah oo maartay de talent leh oo dadka bulshada Soomaaliyeed in yar isku baray waa ninkaas marka in wax walba loo qabto uu mudan yahay Baabajey baana maartay arinta sameeyay oo wuxuu u iibiyay mooto maadaama uu walaalkeen uu sheegtay arrimo asaga familkiisa ah ka haysta dhanka familka oo ah inuu dan yar yahay isku xoogsado oo shaqo raadsado marka wuxuu sheegay Idris in maartay xaafadda markuu ka soo baxo uu bajaaj soo qaato dhaxda uu ku soo dago oo 4,000 oo lacagta Soomaaliga aan maleenadii $4 macna ma 4 ya sorry 4,000 oo lacagta Soomaaliga inay taa maleenadii soo sheegay xogaa lacagta marka haddana wuxuu sheegay in uu ka sii raac haddana markuu shaqadiisa u socdo haddana gaari kale adigu wuxuuna sheegay inuu $14 uu ka helo shaqada uu socdo halka $4 meelahaas ay ka gubato cunto u baahan yahay xitaa $10 marka xaafadiina maartay laga rabo biil aad iyo aad arrimahaas uu soo bandhigay marka Baabajey marka wuxuu sheegay in uu arrintaas ay maartay murugo ku haysay laakiin ay sabab u ahayd xaaskiisa wuxuu sheegay Baabajey in ay xaaskiisa kala tashatay arrintan inuu u sameeyo maartay walaalkan Idris oo loo iibiyo mooto marka run ahaantii waa xaas wanaagsan baan dhihi karaa sababtoo ah xaaska wanaagsan waa midda wanaaga kuula talisa maartay inaad ummadda Soomaaliyeed kuwii aan waxba haysanin aad caawiso midda kuula talisa yaa mudan mar walba in la gursado waana gabadh wanaagsan baan leeyahay aad iyo aad bayna u mahadsan tahay Baabajey sidoo kale asagana wuu mahadsan yahay marka hadii aan la isgarab qabanin يعني waxba ma noqonayno laakiin kii naga hooseeya hadii la garab qabto meel saru gaaraya yani waxtarna way u noqonaysaa dhiirigelina u noqonaysaa kuwa kala kugu sii dayanaya hadii aad maanta adiga aad qof wax u sameeyso bari ku kala kugu dayano asna qof kale wax u sameeynay marka Baabajey ma ahaan markii ugu horeysay oo qof wax guddoonsiiyay ila tahay waxyaalo badan baa ka horeeyay marka Baabajey sorry Baabajey waa maxaan dhihi karnaa waa shakhsi sanadkan dhihi kara macnaha shakhsi sanadka sababtoo ah waa inuu walaalkeen oo dan sheegtay uu garab qabtay marka qofka maartay talentiga lana hadii la garab qabto kor buu sii soconaya marka ninka Idris Itaabo asagana waa nin talent leh oo u baahan macnaha in garab qabasho marka ummadda Soomaaliyeed marka waxaan ugu baaqayaa in lagu daydo Baabajey oo kii dan yar ama kii dhib sheegta in la caawiyo waxna loo qabto oo horay maartay loo socdo diinteenuna way nafaraysaa in maartay la isku naxariisto oo qofkii aan tabar haynin yani tabar la siiyo marka aad iyo aad buu u mahadsan yahay Baabajey waa nin wanaagsan baan dhihi karnaa Idris Itaabana asagana waxaan leenahay horay ugu soco dadaalkaadi iyo shaqadaadi horay u sii wado xaaska Baabajeyna ayadana waa u mahadcelinayna way mahadsan tahay maadaama ay fikradan uu Baabajey ku dhaqaaqay ay sameysay ay keentay macnaha marka aad iyo aad bay ayadana u mahadsan tahay muuqaalkeena inuu naga sii dheeraado mar rabo sababtoo ah waxay ahayd inaan ugu mahadcelino walaalkeen Baabajey hadii aad muuqaalkan aragto shaaya dheh
meel kastana gaarsii marka noo shaagareeya haddii aad nagu cusub tihiinna subscribe-ka noo saara haddii aad nala sii joogteenna aad iyo aad baad u mahadsantihiin kulanti wacan oo wanaagsan